dalka Morocco ayaa waxaa lagu arkay wiil yar oo 2 sano iyo xoogaa jira oo kor ka xafidsan Quraanka Kariimka. Wiilkan yar ayaa la sheegay marka uu fartiisa taabsiyo kitaabka Quraanka Kariimka oo akhrin karo aayad walba oo ku jirta Quraanka Kariimka, waxaana la sheegay inuu akhrin karo oo kaliya kitaabka Quraanka ee uusan akhrin karin qoraallo kale. waa kan wiilka yar oo Quraanka akhrinaya. Allah wattaqullah lamu anna Allah fa'adta waqaf وأنا مدثر يا أيها المدثر وأنذر قم فأنذر ربك فكبر وربك فكبر ثيابك الطيب الأرض ولا في السماء والذي سويت كيف يشاء بارك الله فيك كيف يشاء لا إله وعصيت حكيم هو عزيز الحكيم. الإخلاص سورة الإخلاص. هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. kan yar ayaa wuxuu leeyahay calaamad la yaab leh. farta suulka agtiisa ka soo baxday ayaa tilmaamaysa kelimada Allah. hooyadiisa oo weydiisatay dhakhtarada inay ka jaraan ayaa dhakhtarku u sheegay inaysan micno samaynayn ay soo baxayso asbuucyo kadib. iyada dhashay Yaxya ayaa sheegtay inay arrinkan ku aragtay wiilkeeda maraan sii fogeyn. waxayna sheegtay habeenada ka mid iyagoo telefisyoonka fiirsanaya uun mar kaliya ay ku baraarugtay wiilkeeda oo Quraanka la akhriyay wadaad Quraanka ka akhrinayay telefishinka. arrinkan oo cabsi gelisay. waxayna sheegtay inay arrinkan la yaabtay una bandhigtay wadaadada ayna markii dambe ugu micneeyeen in wiilkeedu yahay mucjiso ka mid ah aayaadka Ilaahay una ka soo muujiyo makhluuqaadkiisa cidda uu raboodo. والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضع ها شوفي خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان يا يحيى خذ الكتاب بقوة.